Soomaalida ee xadka baxa ah waxaana uu igu yiri Soomaalida wax walba hal la yiraahdo way ka dambeeyaan adduunyada kale laakiinse hal ay adduunka kale ku hogaaminayaan ayaa jirta waana taranka iyaga oo ah dalka calanka u sidaba qoyska Soomaalida wuxuu celcelis ahaan soo saarayaa 7 qof oo bedela halka Yurub oo dhanna marka aad isku darto ay xaddiga tarankooda ka hooseysa 2 qof tusaale ahaan Germany waa 1-1 xadkan haddii la gaaro waa irreversible bulshadaasi faca nool loodkii bedeli lahaa ma soo saarayo wayna ka baxaysaa jiritaanka waana matter of time in ay naftiir go'aan Ingiriiska waa 1.8 Faransiisku waa 2.4 waxaana ay reer Yurub ay ku socdaan heer ay tafiir go'aan laakiin bulshada in ay ku korto 2.0 waa xal badbaado u noqon karaya caalamka aynu ku noolnahay dunida ayay qatar ay ku tahay tirada dadka sida macna darrada ah isaga soo koraysa ma qaadi karo ecosystemka aynu ku noolnahay 9 bilyan oo qof waan in tirada hoos loo dhigaa inta aan la gaarin 2050 oo la xakameeyaa markii intaasi uu yiri kadib niyada waxaana iska yiri oo isaga ma waxa uu hayaa intaasi oo idil wixii arsaaqay ku baxaysay xagee ayuu dadka dunida musiibo ugu arkayaa ma aanan weydiin oo waxaan ogahay in arrinku sidoo igu sheegay aysan ahayn ee xaqiiqda ay ka duwan tahay waxay ka baqayaan in taranku uu yahay hub ciidan oo ay dunida ku kala adkaan doonto maalintii ay noqotaba waxa aan weydiiyay markaas Soomaalida waxaan weydiiyay su'aal ah Soomaalida xadkee ayaad ka fikiraysaan in tarankooda uu noqdo waxa si ugu jawaabay 2.3 ama 2.0 sida dadka caadiga oo kale muddo intee leeg ayaa lagu gaarayaa in taranka Soomaalida xadkaasi la gaarsiiyo ayaan ku ciriyay waxaana uu ku dooda in haddii si fiican loo shaqeeyo ay qaadan doonto waxaana ka badnay 20 sano oo uu ku cilaamiyay ilaa 2030 sidaas ayaan rajaynaynaa in Soomaalida tarankeedu ay taayada la simanto oo qoys kastaaba uu u soo haro oo kaliya 2 ubad waxaan hoga tusaaleeyay in Soomaalida ay leedahay natural birth control waxaana igu soo celiyay su'aal ahayd maxaad ula jeedaa beerag ninkii ahaayeen kadib waxaan ku iri idhigayso 7 qof ee Soomaalida ma wada hana qaadaan bar ayaa dagaal ay laayaan in badanna xanuun iyo faqri ayay u dhintaan markaasna uma baahna in lagu bixiyo mashruuc dhashooda lagu xakameynayo beerag ayaa hadalkii qaatay isaga oo caray ka muuqato waxaana ugu yiri